madaxweyne farmaajo oo ciidanka qaranka ugu deeqay mushaarkiisii bishan 100 neef oo geela iyo saanad ciidan ayuu geeyey furunta hore ee dagaalka ka socda gobolka Hiiraan. waa galwaradii warbixin xasaasi ah oo lidii kala wadaagi doona xog muhiim ah oo ku saabsan mushaarkii madaxweyne farmaajo bishan ku lahaa baarlamaanka oo ciidamada ugu deeqay 100 neef oo geela iyo saanad ciidan sheegariya ugu faafiyay dunida meel walba ku tabar muuqaalka YouTube-kana Galwarada TV na subscribe soo saar way hageen ku bilaabo. madaxweynaha hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qaaday tallaabo geesinimo leh kuna dhiirigelinaysa ciidamada qalabka sida inay dagaalka sii wadaan. madaxweynaha ayaa saanad ciidan mushaarkiisii bishan uu ku lahaa baarlamaanka iyo dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale 100 neef oo geela waxa uu ku wareejiyay mas'uuliyiinta horboodaya iyo dagaalka ka socda gobolka Hiiraan ee ciidamada dowladda ay kula jiraan ururka argagixisada. talaabada madaxweyne Farmaajo qaaday oo ciidanku si weyn u soo dhaweeyeen ay uga mahad celiyeen inuu yahay madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee garab istaag u muujiya mushaarkiisana ugu deeqam. arrintaas oo noqotay mid farxad geliday ciidamada iyaga oo ka ducay kuna amaanay sida uu dhiirigelinayo. arrintaas sidoo kale waxay noqotay mid farxad geliday shacabka gobolka Hiiraan iyaga oo tilmaamay in madaxweyne Farmaajo uu yahay aad u qalbi wanaagsan isla markaana jecel inay Soomaaliya guul iyo barwaaqo gaarto ayna diyaar u yihiin inay garab istaag ku siiyaan madaxweynaha tallaabo kasta oo qaadayo si ay markaasi u noqoto mid wax weyn ka bedesha hanaanka loo qaybsanayo مسؤولية ذلك جرت أيضا مدحت كلام لوجا بها إني يقرب استاج موجيان. سيدان حكتك اللي مدحوين فرماجة عيا فرنت هرئ الدجال كجيب قل نف وجيله ولا قصة قضي سوغيض ذلكم. إذا لوجا تلقى إن عيد مضى أي قشان أنت أي ورضا يدجال كالتوصى كجيران. سيدا كل مشار كيسي بشان قصة دعي. حرمت برلمانك أو بشان كبيري يدورد الصومالي أي سيدي أيو سيدا كل أدري عيدنك. isagoo ku wareejiyay taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Adogo Yuusuf Raagi oo wakiil laga ah deeqahan iyo raashinkan oo madaxweyne Farmaajo ciidamada gaarsiinayo. sidaan xogta ka helay madaxweyne Farmaajo ayaa bilihii la soo dhaafay sidaan oo kale u garab taagnaa ciidamada isagoo in ka badan 100 askari mushaarkooda bixinayay. sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu qaaday tallaabo aad loola riyaaqay kadib markii saanad ciidan oo aad u tiro badan uu ku wareejiyay ciidanka iyadoo dowladda Turkiga ay saanadan ciidan madaxweyne Farmaajo si gaar ah ugu tala gashay inuu isku ilaaliyo. laakiin madaxweynaha ayaa jeclaysay in qaranka lagu difaaco saanadaasi intii noloshiisa lagu difaaci lahaa taasi oo shakhsi garaynaysa howlihii qaran ee madaxweynuhu u taagnaa. sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa 100 neef oo geela amray in laga gado suuqa magaalada Beledweyne lana geeyo furunta hore ee deegaanka Qalcad ee dagaalka ba'ani ay ku dhex maray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab. talaabadan ayaa looga baaqay Xasan Sheekh Maxamuud inuu dhiirigeliyo isla markaana shacabka Soomaaliyeed ay u istaagaan sidii madaxweyne Farmaajo garab ugu siin lahaayeen. tallaabooyinkan aadka u quruxda badan ee la soo dhaweeyay ciidamada qalabka sida ayaa sidoo kale sheegay inay tani badbaado u tahay in ciidamadu ay marahan dhismaan iyaga oo aad uga riyaaqay tallaabada uu qaaday madaxweyne Farmaajo ee garab istaaga geesinimada dhiirigelinta dareen muujinta iyo inuu madaxweyne noqday oo ay cadaynaysa arrintaasi sidoo kalena uu yahay madaxweynihii ugu wanaagsan ee abid Soomaaliya soo mara. qabiil iyo dal iyo qaran waa horaan kala doortay waxaan doortay qarankan doortay waxaan ugu shaqeynayaa si wadaniyad ay ku jirtaan ugu shaqeynaya patriotism ay ku jirtaan ugu shaqeynaya. qofkii aqliga raba qabiil inuu dawlad kula dhex joogo ama ciidan kula dhex joogo ogaada meel iga qora waa qof xanuunsan ama waa qof hadda dhashay. maxaa yeelay waa soo aragay ciidan iyo dal ku dhisan wadaniyad iyo mabaadii guud waa soo aragnay. mabaadiidii wadaniyadda laga tagayna waa soo aragnay oo aan qabiil ka aadnay. burburkeedii iyo dhibkeedii iyo halaageedii iyo qaxeedii waa soo aragnay oo ay gaarsiisay saraakiil badan oo pilots ahaa inay baadiye iska aadaan xoolaha iska raacaan meeshii awoogood ay uga soo tageen qarniyo hore ay dib ugu noqdaan ama ay suuqyada
ku iibiyaan looska iyo qaraha maxaa yeelay sharafku waxay ku lahaayeen shalay waddaniyadii sharaf ku lahaayeen laakiin markii qabiil ay aaday dee waxaa soo gelaysaa qof kale isbaaradiisa marka waa inaa aadaadna isbaaradaada meesha reerkaagu joogina aadda wey reerkaagana wuxuu ku siin karo keliya waa wixii 70 sano 80 sano ay ku noolaayeen oo aan horumar lahayn walaalayaal haddaan doonayno horumar haddaan doonayno inaan la tartanno caalamka haddaan doonayno shacab caafimaad qaba aan qaadanno mabaadi'da waddaniyadda ah oo patriotismka ah anugu waxaan rabaa inaan taabto booliiska Soomaaliyeed inay ahaayeen hooyadii dowladnimada Soomaaliyeed iyo nidaamka iyo kala dambeynta haddaad maqashaan dowlad wanaag waxa weeye aasaas waxa u ah booliis iyadan hadday dowladdu xun tahay macnaheedu booliiskaana shaqaynin hadday dowladdu wanaagsan tahayna ama aad maqashaan dowlad wanaagna waxa weeye booliiska habeen har iyo habeen taagan oo shaqadii dastuuriga ahayd ama waajibaadkoodii gudanaya digtoonow anaxsan yasa haddaba waxaan rajaynayaa inaad bacdama aad tihiin aasaaskii amniga ilaalinta amniga iyo law and orderka inaad shacabka u adeegtaan oo si hufan oo wanaagsan oo raxmad leh oo naxariis leh oo walaaltinimo leh aad ugu adeegtaan maxaa yeelay iyagaa bixiya mushaarkaaga waa taxi payers canshuurta iyagaa bixiya mushaharka aad ka qaadato booliisku waxay joogaan meel walbay joogaan qaybaha canshuurahay joogaan jidadkay taagan yihiin traafika weeye meel walbay joogaan meel alla meeshay joogaan hadday ay uga shaqeeyaan si hufan macnaheedu waxa weeye oo qofka musuqmaasuqa wada ay qabtaan oo ay u soo gudbiyaan hay-adaha shaqada ku leh shaqadaas macnaheedu waxa weeye dowladdaasi waa dowlad wanaagsan oo si wanaagsan u shaqaynaysa wey waa institutionkii waa hay-addii ugu horreysay oo la aasaasay waxbay kuu sheegaysaa marka macnay leedahay waxa weeye waxaan loo aasaasin 78 sano ka hor ciidamada dhulka ciidamada cirka iyo ciidamada badda iyo hay-adaha kale ee dowladda waxaa loo aasaasay inay yihiin aasaaska dhabta ah ee dowladnimada Soomaaliya loo diyaarinayay xorriyaddeeda